ilaa iyo 11kii habeenimo ee habeenkii xalay ahayd ilaa iyo 1 badhkii duhurnimo ee maanta ahayd ayaan magaalada Ceelbu iyo nawaaxigeeda waxaa ka daayay roobab laxaadle roobabkaasi laxaad kale ayaan haradii weyneyd ee bulshada isku lahayd ayayna ku ridin barbiya muddo dhowr sano ahna ayaan bulshada magaalada Ceelbu ayaan waxaan ka maqlayay oo dhagteeda ku soo dhacay harada biyo kuma dhacaan oo faafkii hore ee biyuhu ay ka soo geli lahaayeen ayaa waxaa lagu xidhay darbi weyn dhowaan ayay ahayd markii qarbadka biyaha kaydiya markaasi la dhigay haradaasi magaalada Ceelbu waxaana ka dhacday xaalad farsamo xumo oo waxaa laga xidhay harada biyihii ku dhici jiray ee muddada dheer ee 3 bilood markaasi biyaha haradaasi laga cabi jiray waxaana farsamo xumadaasi ka mid ah halkii ay biyuhu ka soo geli jireen oo dalcadaadu dheera oo biyuhu markaasi ayna harada gudaheeda ayna soo gali karin waxaa kaloo farsamo xumadaasi ka mid ah halkii biyaha ay ka bixi jireen ee qashinku markaasi barkada iska reebi jirtay oo hal goob ku wada yaala waa halka ay biyuhu ka soo galaan iyo barta ay ka baxaane waa kan shiine oo ka mid ah guurtida magaalada Ceelbu oo ka waramaya haradaasi si farsamo xumada ugu dhacday iyo gudidu say markaasi saga indhatirtay magaalada Ceelbu ayna haradaasi ayna waxba ka qaban ee bulshadu muddada dheer ay biyaha ka cabi jirtay bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haradatan aan maanta taagnahay taariikh badan oo hadda kulay ilaa 4 sano ilaa 5 sano meelaha noqonaysa anigu cagayga kuma iman maanta oo saddexaad ay tahay 22 ayaan anigoo dhigta muddo dheer wax ka maqlaayay haradii biyo waa laga xidhay haradii roobkii waa biyeen waayay ayaan maanta darteed u soo aaday haddana waxaan dhex fadhiyaa harada dhexdeedii haradatan waxaan garanayaa iyada oo roob yar oo biyo marisi iyadoo aan la dhigin tayuubka aan la dhigin shaqada tan dambe oo hadeer aan daawanaynay aan lahayn sidii loo qoday ay tahay ayaa roob yari wuxuu helay Ceelbu iyo goobaankiisa roobkaas waa buuxiyay haduu buuxiyay 3 bilood baa la cabay wiilal baa ka shaqayn jiray 3 bilood foostadii u dambeysay xalaal baa lagu cabay foostadii iyadoo ay halka noo marayso waa shaqada tan ku bilaabatay meesha intii ka dambeysay waxa aan haystaa ama se maanta ba arkaa oo hadeer aan arkay biyaha dhinacyada ka dhaafay intay xoog leeyihiin iyo sida ay u maran tahay marqaanti intaas ay noqotay waxa ku dhacday halakan shaqo xumo iyo maamul xumo waxay ahayd in saaqadaheeda oo hoosaya oo hoos loo dhigo marka waxaan aragnaa waxaan ka warbixinayaa meesha tan inay maamul xumo ka dhacday ciddii samaynaysay iyo ciddii maamuleysaba waxaan aragnay inay haradaas ka guur tahay waa haradii ku magacawnayd karinta waa haradii Ceelbu ka xigtay 1 kiiloomitir xagga galbeedka waa haradii mar lagu barwaaqoobay lagu liibaanay waa harada haday biyo galaan si aad iyo aad taariikh dhan loo cabi lahaa waxaan u arkaa inay haradaas lagu guuleysanaystay sidii dadkii sameeyay iyo kuwii maamulayba marka waxaan leenahay shacabka jooga ha jabiyeen gidaarada tan ha loo fasaxo biyaha meesha si ay dadka biyo ugu galaan si ay u buuxsanto si loogu barwaaqoobo si dalka iyo dadka wax u tarto intaasaan anigu ku soo gooynayaa waxaad ka warantaa mudane gudida magaalada maxay arintan wax ku qaban weyday barkadana biyaha ugu furo weyday hadda roob baa barteena saaray oo hayaa biyo saas uga laxanaya marka maamulka ka war magaalada maxaa anigu gudida magaalada Axmed waxaan buu aqaan kiiska adag baan bayraahdaa oo gudi magaalada hareeraha uga baxda maaha gaariga hay'adii leedahay oo magaalada gudaheeda soo gala way la shiraan waana u tagaan wixii uu soo saarana waxbay kala adfaan laakiin waxaan u lahaa shacabka magaalada Ceelbu ha ugu dhaarteen inay aakhira qabanayaan oo dhimanayaan baan oran lahaa shacabka magaalada waxaan leeyahay isku mid noqda gudi samaysta ay tahay gabeekan hadeer aan dul taagnahay waan biyaha ka cabay gabigaasu waxa weeyaan roobka biyaha dul marin kara
ama dhaafsiin karaa waa roobka la yiraahdo roobshaasoo aafay ahayd waa roob biyo badan roob caadi ah oo dhan mana dhaweynayo mana gaadhayo marka sidaa darteed mar haday tahay waxay u baahan tahay ceel in roob yarina buuxee biyo gelin karo roob weynina biyo gelin karo waxa labaad oo jira docda ay biyaha fatahaada loogu tala galay iyana waxa weeyaan waa mid la mid ah oo intay doonto kor u dhisan oo roob aafo lagu magacaabi karo maahay roob yar aanu ka saari karin biyuuda mar haday harada ka noqon waayaan oo ka bixi waayaan haddii caafimaadkoodu waa yaraanaya taana waxaan leeyahay si aad iyo aada shacabka waddanka ku nool hay'adaha maxaan ku leeyahay qurba joogta maxaan ku leeyahay ninkii ka daqnanayaba dadkaas sidaas ay meeshaas haradaas uga qariban tahay intaasaan ku soo yargaabinay guddidu markii miino joogin saatan loo galay barkada guddidu waa joogtay oo waliba waxaan anigu igu maqaalaa meesha ma aan joogin waxa igu maqaalaa dad baa qayliyo wax yiraahdeen sida tan dhismaxumada tan harada waxba yeelayaan halaga daayo dabadna waa laga diiday darbiga dheer ee biyuhu ay ka soo gali lahaayeen ayaa wuxuu ku yaalaa afaafka hore ama gacanka biyuhu markaas soo qaada kuna soo rida barkada ayaa waxa laga sameeyay kaabadaadu dheer oo biyuhu ay ka soo gali kar lahaayeen halka iminka uu ka cabayo shiine ayaa ah kaabada dheer ee biyuhu ay ka soo gali kar lahaayeen waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag.